بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كان يتعانى CSS وأنا كوسميني بوك دمايستران عشر كان نروح عن سوح لني وحيابه إن خلدنا أما إنه كور كني ديبو ريفاكتور قرينا أما ديبو صحنا مركا هذا واحد نكو قادنا قيبتين الميديا كوريس هذه بيج كا مريسي بيج كان حوجا كوكا دوينين سيدات صالحة ريسنتي بوستس وأول هرا لورم إبسون ها قرال إسكا سامبلا وحن قدي قرال عادية sidoo kale halka waxaa ku aragtaa inaan kan linki ka soo dhigay just kan bad copy garanaysaa sawirkan oo kala bedelaysaa sawirada hadda haystid waxaa kale oo dheeraad aragtaa line-ka yar ee kala saaraya date kale la soo post gareeyay iyo content-iga ama ubuucda so waa HR kan waa line-ka yar ee horizontal rule qaybtan waxaan ku qaadanaa marka media queries-ka tusaale ahaan webkeena hadii soo noqono hadda caadi weeye page-ka kale oo laga soo gali karaa computerada laakiin hadii la damco in laga soo galo small devices sida mobilada qalabka yar yar ee mobilada ama tablets iyo waxyaabaha ama printer oo kale hadda printerada xataa waxay leeyihiin meel oo laga maamulo ee u jeedaa in uu header-keeni sidaas ugu dhex yaacayo ee halkan recent posts oo kale waxay noqonayaan hoos bay u dhacayaan marka inagu marhabno qaab noocaas oo kale qofka mobilka soo galay maadaama dadku hadda aad u isticmaalaan mobilada waxaan rabnaa inuu u boggeeno noqdo mobile friendly ama waxa lagu yeero responsive web design wax kale maaha waxa weeye page-kan inuu marba device-ka ama aaladda laga soo galayo isla bedelo oo uu noqdo mid ku haboon aaladda laga soo galayo fit ku ah ama ku sargo'an okay bal aynu bilowno waxaanu ka bilaabaynaa marka hore header-keenan oo haddaan hadda right click siiyo aan dhaho inspect element Google Chrome markaad joogtid halkan waxaan ka dooran kartaa haddaan ku dhufto halkan waxaan ka dooran kartaa waxa la dhaho responsiveness so waxaad geyn kartaa S5 haddii laga soo galo saas oo kale noqonaya mobilkana Galaxy S5 haddii Google Pixel laga soo galo haddii iPhone X laga soo galo saas oo kale noqonaya marka uma baahnin website-keenu inuu sidan oo kale mobilada ku noqdo marka laga soo galo inkastay jiraan native applications Android iyo iOS laakiin waxaan rabnaa website-keenu sida Bootstrap oo kale inuu device-yada kale uu uga soo baxay ku haboon okay waxaan ka bilaabaynaa marka code-keena ayaan ku noqonaynaa halkan ugu hooseysa CSS-keena folder-ka maadaama CSS-ku ay code-ka ka soo akhriso xagga ugu hooseysa waxaan ku darnaa waxa la media waxaad sheegaysaa waa device waana wax lagu garto responsive web design marka CSS3 weeye feature-kan inta aad media ku soo darin waxa iska hubinaysaa oo aan mar walba ku sheegayaa inuu boggaagu leeyahay wax la dhaho viewport-iga aan xaggan u durkayo hadduusan metada lahayn media query-gaagu ma shaqaynayso waxna kama jiraan marka waa inaad ku soo dartaa meta tag waxay full information more information boggaaga waxaa dhahaysaa name waa viewport-na waxaa loo yaqaanaa shaashadda marba halka laga soo galo content width-ka ama xajmiga shaashadan ama boggeenu mar walba hala ekaado baan device width kan laga soo galo initial scale-kana waxa weeye waa zooming level-ka waa 1 ilaa way fara badan yihiin marka inagu waxaan ka soo qaadanaa by default 1 haddaan tuu dhaho page-keenu more zoomed buu noqonayaa ama mid aad loo soo dhaweeyey okay bal aan ka taatiro page-keenan waxa la meta soo aan comment ka dhigo save gareeyo haddaan refresh gareeyo hadda wax isbedel arkamaysid laakiin haddaan inspect element galo page-keena waa ujeedaa web ahaan buu soo baxay xataa haddaynu responsive dhahno web ahaan buu soo baxayaa haddaynu Google Pixel ka doorno web ahaan buu soo baxayaa Galaxy S5 haddaynu doorno web ahaan buu soo baxayaa waa ujeedaa iPad haddaynu ka soo galno saas kale soo baxayaa laakiin haddii aynu ku noqono code-keeni meta tag aan save gareeyo oo ku soo daro oo aan refresh gareeyo boggeena waxa ujeedaa responsive markaan dhaho qaabku uu soo baxayo qaab mobile ahaan u soo baxayaa marka aad baa iskaga hubinaysaa inaad meta tag ku soo dirtid okay inta markaynu ka nimaano first media query-geena tijaabinaynaa media ayaynu qornay halkan waxaa geli karaa waxa la dhaho only waxaa kaloo geli karaa not markaad leedahay tusaale waxaad leedahay not printer oo kale waxaad leedahay wixii laga soo reebay printerka waa just condition if not oo kale ama haddaysan sida ahayn marka inagu waxaan isticmaalaynaa si caadi xalin media only baa jirta waxaa dhici karta only screen so only screen
aan ayaynu ku daraynaa marka shaashad laga soo galo caadiya kabacdina waxaynu sameynaynaa parentheseskeena ayaan furaynaa halkan waxaynu gelinaynaa maadaama waxaynu wax ku cabirayno yahay width waxaan isticmaalnaa wax la dhaho max width waan casharadeenii hore idinku soo sheegnay waxaa jira wax la dhaho max width iyo min width so max width waxa weeye xajmiga markuu breakdownku ama pagekaasi gaadho xajmiga ficilkan ama css rulekan ku fuli okay waxaan leenahay max widthka 768 khasab maaha inaad 768 ka dhigtid waa widthka inta doontaa ka dhigi kartaa doontaa ka dhigi kartaa max widthka markuu gaadho ama xajmigaasi 50% so 768 inta badan waxaa lagu qiyaasaa aaladaha dhexe sida tabletska ayaa inta badan loo isticmaalaa so waxaan leenahay tusaale ahaan bodigeena backgroundkeena bedelnaa si aan u tusano tusaaleyna background waxaan ka dhigaynaa tusaale ahaan blue save aan pagekeena ku noqono saan hadda refresh kare waxba isma bedelin laakiin haddaan sidan dhaho oo saa u yareeyo pagekeena markuu 768 maraya ujeedaa wuxuu noqday backgroundkii blue mu noqday si aan kugu xaqiijino waxa weeye right click baa siinaa inspect element ayaan leenahay halkan waxaanu ka dhigaynaa tusaale ahaan responsive halka waxaad ka arkaysaa cabirka mar walba taagan yahay soo haddaan badino waa caadi soo halkaa u fiirso waxaa ka dhacaya 2016 markaa 700 marayo waa wadaa hadda wax maqnay 800 oo ujeeda 866 weli waxba isma bedelin markaan 760 markaan soo gaadho waa ujeeda si isu bedelayo marka daat micnaheedu waxa weeye rulekan igu fuli mar alla marka xilligaa soo gaadhay marka macnaha breakdownka soo gaadhay halkan haddaan isticmaalno wax la dhaho min width ayaan idin tusayaa min width haddaan halka isticmaalo oo aan refresh karayo pagekeena waa caddaan inta hore oo dhan laakiin marka uu 768 gaadho macnaha ka bato ayuu wuxuu ku fulinayaa css ruleka marka hadda farqiga u dhexeeya waa taqaanaa haddaynu inspect element dhahno haddeer pagekeeni waa 1130 markuu 768 gaadho wuxuu ku noqonayaa sidii originalka laakiin marka uu ka yar yahay waa sida marka uu gaadho 768 ayuu rulekii lagu fulinayaa that means min widthkan marka macnaheedu waxa weeye screenkayga ama shaashadaydu markay 768 ka badato waa min width wixii ka badan rulekan ku fuli shaashadaydu markay ka weynaato 768 weeye max widthkan waxa weeye shaashadaydu marka ay ka yaraato 768 ama gaadho rulekan ku fuli halka min width ka yahay marka ay ka weynaato shaashadaydu ama leekaato ku fuli ruleka hadda waa kala fahanteen moomale marka inagu marka walba waxaan isticmaali doonaa max width halkan xataa waxaa ka dhigi kartaa waxa la dhaho printer waxaa ka dhigi kartaa all soo anigu waxaan isticmaalnaa maadaama aynu shaashad ka fikrayno screen shaashadaasi mobile bay noqon kartaa computer bay noqon kartaa hadda halka waa isla fahanay intaas waxaynu ku qoraynay koodhkeena ugu horeeyay ee ku saabsanaa media query insha allah iyada oo casharkeena qaybteena kaga saabsan ayaynu casharka dambe qaadan doonaa wabilaahi tawfiiq